masalada labaad oo u baahan inaan daa'imno haddii aad tahay qof walwal ka baqaya ama walwalka raba inuu iska ilaaliyo waxa weeye adducaa markii walwal ku qabto oo mushkila kugu dhacdo oo aad dareento in aad dhibaato ku haysato gacmaha intaad taagatay rabbi hoos fadhiiso walaahi maa acdama adducaa khaasatan cinda albalaa wax duco weyn ka weyn ma jiro markii qofku dhibaato haysato khaasatan qalaq walwal markuu haysto waxaa arkaysaa qur'aanku wuxuu leeyahay waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigii wuxuu yihi ibarya waa idinka ajiibaya waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib bal ee qur'aanku uu waajibinaya wuxuu leeyahay wadcuuhu khawfan wa tamaca war ilaahay barya adoo damacsan adoo ka baqaya labadaba bari saxaabada nebigu maalin buu u sheekeeyo wuxuu yidhi duca aad alla baridaan ma jirto ilaa waa lidinka ajiibaya say dhaheen idan nukthir walle marka waan badinaynaa allahu akthar ilaahay baa ka sii badan haddaad badiso ilaahay baa ka sii badan wuu ku sii badinayaa laakiin ducada haddaad dareensan tahay inaan ducada lagaa aqbalin haddayna ducadaadu qiimo iyo macno weyn kula lahayn waxaad fiirisaa aadaabta ducada kaa maqan aadaabta ducada waxaa ka mid a markaad ducaysanayso in aad 100% hubto inuu ilaahay kaa aqbalayo oo shaki kaaga jirin yaa ikhwaani waxaad fiirisaan nin sharaf leh oo familkaaga ka mid a oo waxaa jira markaad wax weydiisanaysa aadan ka shakinaynin inuu ku siinayo ma hebel baa intaan u tago waxaa ii diidaya maxaad u maleynaysaan allihii rabbigii kownkaan abuuray ee deeqsinimada isku ammaanay ee yidhi addoonkayga hadduu gacmaha ii taagto waxaan ka xishoodaa inaan ku soo celiya iyagoo maran maxaad u malaynaysaa hadday niyadaada shaki ku jirin oo aad isku hubto alla wuu ku siinayaa wiil waxaa jira dhalinyaro ah oo indhaha ka jiran indhaha marka wiilku wax weyn ma arko waana nin aad u cibaado badan oo khayr jecel oo dhalinyaro ah marka xajku aaday sheekhi uu la xajinaya wuxuu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay markaan xajinay biyaha zamzam baan u nimid biyaha zamzamka markaan nimid dadku intay cabaan bay wejiga marsadaan madaxay marsadaan biyihii wuxuu intuu wejiga ku dhaqday oo cabay oo madaxa ku dhaqday oo kiyaalihiisi anoo u jeeda buu intuu isku laabay oo jabiyey buu taraashka ku tuuray qashinka markaasaa ilmu maxaa adeer isaga tuurtay oo kiyaalaha markaasuu soo nebigu ma dhihin sal allahu alay wasalam biyaha zamzam waa wixii loo cabo waa laga helaa anuu biyaha waxaan u niyeystay indhahaas ilaahay inuu iigu caafiyo wuuna iigu caafinayaa wuxuu yidhi markii xajkii uu dhammaaday yaan wiilkii waxaan geeyey isbitaal anoo rabo bal inaan fiiriyo wiilkan niyadiisa inuu ilaahay u qaaday dhakhtar baan u geeyey buu yidhi wallaahi wuxuu yidhi indhihiisa waa 2020 waa si ilaahay ku abuuray dhakhtarkii baa yidhi weligii wax kuma dhicin say clean iyo nadiif u yihiin markaasaa waxaan ogaaday buu yidhi wiilkani niyadii iyo kalsoonidii uu alla ku qabay buu alla ku irsaaqay mar haddaad aaminsan tahay noocaas yaa rabbi haddaad ahayd walwal iyo dhibaato iyo mushkilaad waad kala dhammaanaysaan waa xaqiiqo weeye waxyaabaha aan la yaabay waxaa ka mid a mar baa xaaskayga oo uur leh ilmo caloosha ugu jira iyo waxay dhaheen ilmaha waxbaa ka khaldan wadnaha duleela caloosheedu ma korayso maalin dambe waxay dhaheen caloosheedu way sii yaraanaysaa mar walba oo hadda waxay maraysaaba markii ciyaalka la fiiriyo 10% bay maraysaa maalin walbana way sii yaraanaysaa marka waa inaan ilmahan soo saarno bannaanka usoo saarno oo dhala aan gelino hadda miisaankeedu wuu fiican yahay laakiin way baaba'aysaa cuntana ma cuni karta caloosheedu waaba waxay sii maraysaa 10% way ka sii yaraanaysaa maalin walba nin oday ah oo dadka masaajidka ku xiran oo wanaagsan ah yaan maalin is aragnay markaasuu wuxuu yidhi ii waran oo reerkii ka waran oo xaaskii ma umusho saan idhi maye oo baryahan isbitaal baan ku noqonaayo maalin walba gabadhii baa waxaa ya ultrasound la saaraayo waxay leeyihiin ilmaha wax ka khaldeen waa soo bixinaynaa markaasuu war sheekh cabdirasaaq ma waxaasa annagana dhiba waa taqaanaay annaga waxaa nagu filo inaan gacmaha taagano yaa rabbi dhahno intaas wey wallaahi ikhwaanii markii gabadhii ay dhalanaysay waa soo saaraynaa bay dhaheen waxay dhaheen horta waan baroobaynaynaa inay caada u dhasho daawo waan ku shubaynaa yaa siinaynaa foolisaa way ka fooliyeen gabadhii oo saaran sariirtii oo dhahaysa haddaa nabar iqabanaya habeen barkii marka la gaaray 12 habeennimo
bay dhakhtaradu noo timid markaas waxay tiri iska cashee gabadhii ku tiri iska seexo sababtoo dumarka foolisada lagu dhufta ayagoon waqtigooda la gaarin 2 beri camal bay yay dhici karta inay qaadato anoo marka iska ilaahay iska tala saaranayo oo iskana gabadhana niyada u dhis yaa waxaan idhi fajarka salaada fajarka intaan la gaarin baad dhalaysaa insha allah yaa idhi ilmihii wax yar kadib way foolatay wallaahi ma rumaysan kartaan hadda cunugta dhalashadeedii waxaa ku qoran salaada fajarka waxaa la aadaamayay 6:15 markay tahay baa la aadaamayay 6:16 baa dhalashadeeda ku qoran inay dhalatay macnaha waa inta dheerta laga goynayay 6:16 baa ku qoran macnaha 1 minute wey markuu dhashay bay la carareen dhakhaatiir baa isugu timid waxay dhaheen waa healthy baby xabad ma qabto markaasaa waxaan idhi wixaad sheegayseen awe say dhaheen ultrasoundiga iyo computerka laakiin now we see the real baby cunugii oo hadda runaan u jeednaa xabad ma qabto marka ninkiiyaa xasuustay ninka odayga ahaa fiiri ninkaas suu niyada igu dhisay sida uu ilaahay ii xasuusiyey wuxuu ku leeyahy war waxa hawsheenni weeyaba annagu gacmahan taagana yaa rabbi waxa dhan waa lagu kala kacayaa hadduu qofku marka iimaanka noocaasa qabo kalsoonida noocaasa qabo markuu walwal iyo culays iyo pressure iyo xoogaa kurba dareemo gacmuhu taagtaa ilaahay baa u kala wixii oo dhan kala hagaajiya masalada saddexaad waxaa weeye dikrullah markaad walwal dareentid marka aad kurba dareentid markaad dhibaata dareentid gurigii baa wax si ka yihiin caruurtii baa si ah noloshaadii baa cidhiiri ah waxbaad dareemaysaa kurbaad dareentay intaad fadhiisatid daqaa'iq kooban ood alla hor fadhiisatid alla xus waxay dhaheen culimmadu waxay dhihi jireen laa qalaqa yasmudu amaama dikri lmustamir dikri joogto ah walwal hor istaagi kara ma jiro dadka qaar ba waxay u maleeyaan dikriga keliya inay culimmadu yaqaanaan wax weyn oo culimmadu yaqaanaan war haddaad tidhaahdid keliya intaa fadhiisa subxaana allah waxaa lihi kelimaadka ugu nafciga badan dikriga oo ugu hagaagsan oo ugu awooda badan marka qur'aanka laga soo tago waxaa weeye subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar intaad fadhiisatay intaas ku celceli waxyaabaha dhacay oo qisaska aan la yaabay waxaa ka mid a gabar baa beri noo timid marka waxay tidhi sheekh hurdada 3 sano oo hadda lasoo dhaafay hurdo aan seexday ma garanayo oo weyn waa gabadh dhakhtarad ahoo soomaaliya weyn marka waxay tihi waa wax mana walwal lama hayo waxay tihi markaas dhooso hurdada way tegaysaa marka kiniini baan cunaa kiniiniga markaan cuno hameen baan seexanaya 2 hameen dhakhtarkaan ku noqonaya kiniini kale isoo qoraya gabadha rafaadka iyo dhafarta ka muuqata waad yaabaysaa marka xoogaa quraan baan ku akrinay waxaa idhi markii walwal markaad seexan weydid oo hurdadu kaa tagta maxaad samaysaa waxay tihi waxaan sameeyaa tv-ga iska kor fadhiistaa saan u kor fadhiyaa subax carruurta igu soo kacaan ma seexanayo hurda igama imaanayso waxaan ku yidhi caawa markaad guriga tegtid ood cishaha tukatid oo shaqada guriga aad dhammaysatid intaad fadhiisatid oo salli aad dhigatid oo aad suuratulbaqara daaratid qur'aan dhagaha gashatid suuratulbaqara daaro dhagaha gasho fadhiiso darintana waxaad soo dhigataa barkin meeshaas fadhiiso oo waxaad ku celcelisaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar ilaa ay kaaga timaado hurdadu haddii aad hurda ku qabato ama caajis sariirtay aadina meeshaa seexo wallaahi gabadhii waxay tiri hameenkii ay igu dambaysay hurda la-aantii waan fadhiistaa qur-aankayaan dhagaha gashaa suuratulbaqara waan fadhiistaa waxay tiri markaan xoogaa wado subxaana allah qalaf waxaan kusoo kacaawayto subaxii waaga baryay saan hurdo wixii waa kala tageen dikriga alla fiiri awoodiis dhalinyarada qaar ba waxay ku leeyihin waktiga ma annagaa dikri u hayna war haddaada wakti xaataa haynin kelimaadkaaga waxaan dhahaa aabbayaasha markaad guriga joogtid carruurtaada markaad time out siinaysid ood leedahay waryaa ma samaynaysaa waxa mise ma samaynaysa haye waxaan kuu qabtay 1 2 3 sooma dhahno waxaad dhahdaa subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah subxana allah wabixamdih subxaana allah alcadiim astaqfir allah wa atuubu ilayh allahuma salli calaa muxamed yaa xayu yaa qayuum tanka waa dhammaatay dhalinyarada markaad xataa biraha jiimka khibraha qaasaan haddaad dhahay ka waran subxaana allah markaad leedahay 1 2 oo iska dhegaysid nin khatara subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar haddaad dhahayd ka waran waa dikri waktina kaama bixin
kaama bixin marka waa cajiib waaye dikriga waqti looma waayo waa cibaadada keliya oo aan u baahnayn waqti go-an oo aan dhaqaalo u baahnayn oo xoog aan u baahnayn oo aan u baahnayn firaaqo aan u baahnayn jikada markaad ku jirtid yaa saddexda qaado oo ku daraysid oo cusbada ah ama sonkorta ishaha waxaad dhihi kartaa subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar waad dhihi kartaa maxaa ka fiican isbar naftaada ku tarbiye